السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سلام صاحب يال waxaan rajeynaya inaad wacantiin kusoo dhawaada Somali Community College. maanta cashir ayaan inoo bilaabayaa oo cashir beginners ah, course beginners ah oo ayaan inoo bilaabayaa oo ugu talagalay ardadan markaan cashiro soo geliyo waxay leeyihiin ardada qaar ma cashir oo beginners ah kusoo dar maadaama uu jiro group Telegram oo beginners ah. marka cashirka beginners ayaan maanta bilaabaynaa waxaana ka bilaabaynaa xarufta luqadda Englishka. English alphabet waa xurufta luqadda Englishka waxayna ka kooban tahay 26 xaraf. shan ka mid ah waxaa la yiraahdaa vowels, 21 kan waxaa la yiraahdaa consonant. marka the English alphabet xurufta luqadda Englishka consist waxay u qaybsantahay ama ka qaybsantahay ama ka kooban tahay of 26 letters, 26 xaruf. each letter xaruf kastana has an uppercase waxay leedahay uppercase waxaa la yiraahdaa capital letters macnaha iyadoo weyn oo si weyn loo qorayo, and lowercase macnaha small letter iyadoo si yar loo qorayo macnaha xarf iyadoo weyn loo qorayo iyo xaruf iyadoo si yar loo qorayo. xarf kastana asoo si weyn loo qorayna waa la qori karaa, asoo si yar loo qorayna waa la qori karaa. computerka iyo buugta labadaba waa lagu qoraa. halkan waxaa ka muuqda inta waa lambarada xurufta. inta waxaan dhahaynaa capital letters iyadoo si weyn u qoran, inta waxaan dhahaynaa waa small letter iyadoo si yar u qoran. meesha waxaa la yiraahdaa phonic pronunciation waxaa waayo sida xurufta ay afka uga soo baxdo macnaha xurufta higaada marka lagu dhawaaqayo tajwiidka macnaha xurufta waxaa jiro xaruf qaar carabka ka soo baxaya carabka hoostiisa, qaar carabka korkiisa, qaar bishimaha, waxaas la yiraahdaa pronunciation macnaha siduu xarf ku soo baxo. intan waa iska sida nameka caadiga oo xarafka macnaha caadi English ahaan loogu dhawaaqayo. marka eedan waa a capital letter ayaa la yiraahdaa saan ay u qormatay English ayadoo small letter na waa pronunciation marka waxay noqonaysaa saan ayaa loo qoraa. dictionary markaa fiirisid xarf walba markuu waxaan camal ku qoray macnaha wuxuu ka wadaa si loogu dhawaaqayo la yiraahdo pronunciation kaas ayaa la yiraahdaa xarfan saan u qoran. marka marka hore waan dul maraynaa ka bacdina waxaan isku daynaa macnaha inaan in kala tuso B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. marka xarf saas waa marka loo aqrinayo generally marka loo aqrinayo. had maxaan dhahaynaa small capital letter waaye tanna waa small letter, B capital letter, B small letter. marka kuwan dhinacaan jiro waxaa waaye kuwan dhinacaan jiro maxaa waaye waxaa waaye haddana aan highlight ka saaray waxaa waaye waa capital letters. boxkan meesha ku qoraya capital letter ay ku qoran tahay meeshaan hoostedana waxaa waaye capital letters A B C D kuwa waa capital letter. small letter gan waxaa waaye xarufta yar oo lower case ayaa la yiraahdaa A B C D macnaha waan ilaa ay zad ka tageysa xaraf walba soo small letter iyo soo capital letter ayuu qoray.
marka kuwan kale oo naamka xarafka sida u qormana sida ugu dhawaaqmana waxa waaye tusaalahan b ayaan nahay b ayay noqonaysaa hadda b macnaha saa loogu dhawaaqa c maxay noqonaysaa c c d e waatana f g h h I ga waa I xarfo qaran isbeddelna dhawaaqa I J K L M N O P B Q Q R S S S T T U V double marka dhahdo waxaa leedahay U double U ada anaa se u dhawaaqmaysa ayaa loo qoray double U X X Y W iyo Y maqsad Y maqsad Z Z Z Z marka maxaan dhahnay 5 of the English letters shan ka mid ah waxaa la yidhahdaa vowels 5 of the letters in the English alphabet are called vowels marka maxaa waaye A E I O U shanta ayaa la yidhahdaa vowels waxaa vowels gaar loogu qoran macno dambe ayay yeelan doonaan oo waxaa la yidhahdaa article ayaa ku imaan doona si loo isticmaalo xarufta ka bilaabato A E I O adi vowels xarufta ka bilaabato xarfaha oo prepositionka ama articleska loo isticmaalo ayaa ugu imaan doona insha Allah marka hadda iska sii baro inaad xifdiso waayo 26 xaraf 11 ka mid ah waxaa la yidhahdaa consonant 5 ka mid ah waxaa la yidhahdaa vowels marka waxaa waaye waa kuwan waa A E I O U the remaining 21 letters 21 kale soo hartay are consonant ayaa la yidhahdaa kuwan waaye consonant kuwan waaye consonant they are called consonant waa P C D F G H I waa ka buuxisa marka J K L M N O waa ka buuxisa haddana P Q R S T U haddana ka buuxisa B V W meesha ka maqan sorry W X Y Z marka 21 xaraf ayaa la yiraahdaa consonants hadda dil weydi right the 21 consonant letters waa qori kartaa oo malaynaa qor hadii lagu dhaho 21 consonant marka waa saas oo qormata eraygaas haddaan ku dhaho right 21 consonant letters kuwan ayaa qoraysaa haddaan ku dhaho right the 5 vowels English alphabet letters aan ku dhahno shanta ayaad qoraysaa marka cashirkan waa cashir beginners insha Allah bilaabo ilaa ka raano insha Allah waana beginners level 1 waayo marka waxaan rajeynayaa asxaabta nagu jira beginnerska ah inaan macnaha ayagana aan faa'iido u sameyn doono ayna noqono sare iyo kuwa dhexe bas inay faa'iidaystaan marka inaan wada faa'iidaysanaa rajeynayaa groupka Telegram-kana waa u gelinayaa si jamacna YouTube-kana u soo dhigaya cashirka insha Allah aadna waa in salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh ana hilmaamin channel inaad subscribe saarto waliba inaad notification kana furto si fiican casharada aad sugayso ay xasuusin kugu noqoto markay kuu soo dhacdo insha Allah